timaado marka wax walba hagaagaan ee ogaada farxadaba ana samaysan karo qofku wanaagsan ma ahan mid hadal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam asxaab meel kasta duulka ka joogtiin kusoo dhawaada channelka Triso Badio maanta iyo muuqaal kale oo qurux badan aad baa idin mahadcelinaa dhammaantiin Soomaali Maxamed meel kasta duulka ka joogtiin igu qaato hargabsanahay saawo umaaday xanuuna ka bixi laahay alxamdulillaah waa fiicanahay qandho hargab يعني دهالك جورجا وحرن أيوة بتي شو مرة بمقالك إنه نوصي ديرادو هرتك وحاجة عسين فرحة ديدا دول عدين تيدا شو مركز عدا وحكدم بس مركتي مركزين إن شاء الله آدي بإذن كذا مهد علنا تسيد خروج بدن أيوة سود بعسين ما في حروة أنا أخريو ورخذا أي حلقة كوتا ورخذا هن أنا إسكفر ليه بيوصل لهذا إنه قرب marka waxa jecelahay wax markuu qalbiga iga soo dhaco aminid iga soo dhacaan waxa jecelahay isla markaba inaan qoro sababta ah waa ilaahay amarkiis inkasta mashquulkayga iska badan yihiin marka anu maanta waxa diyaar u ahay muuqaal walba qurux badan inaan idin soo bandhigo hadii ilaahay karaal noqdo saa dhahdeen ba aniga garabkaaga nahay badminigay adigana muuqaalada YouTube-ka noo soo badiyaa dhahdeen marka insha Allah muuqaalooyin kala duwan idin soo bandhiga hadii ilaahay karaal noqdo waan ku faraxsanahay sida qurux badan muuqaalada u sheer gareynaysiin community-da qurux badan ay soo diraysiin kun koo jeer waa mahadsantihiin intaan abaalkiin idin gudaha ilaahay karaal noqdo haddana waxaan diyaar u gudagalaynaa inaan akhrino warqadda koowaad waxa ku qoran tahay warqadahan ana qore soo qaniyada iga soo dhacaysa hor in kuu sheegay marka waxa jecelaystay in idinkan aan la wadaago warqadda ugu horeysay waxa ku qoran nolosha waa qurux markii aad barato in aad ku faraxdo wax yar oo aad haysto been maahan wax yar marka haysatid waa inuu ku faraxdaa oo waliba aad dhahdaa alxamdulillah shukr bil caalamiin oo ilaahay u mahadnaqdaa okay talabaad mararka qaar aamusnaantaada ayaa ka xoog badan hadalkaaga been maahan marka hadalada jawaabta ugu fiican waa aamusnaanta dadku waxa ugu raayn kartaa ina aamustid aniga baa igu taqaaniin badanaa anu waxa jecelahay ina aamuso waxa dhan ina bixbixiyo ma jecli waa mararka qaar aamusnaanta ayaa ka xoog badan hadalkaaga qalbiga nadiifka ah iyo niyadda degan waa hantida ugu qaalisan ee aad yeelan karto qalbiga nadiifka ah iyo niyadda degan waa hantida ugu qaalisan oo aad yeelan karto been maahan dhib kasta oo ku yimaada wuxuu xambaarsan yahay casir iyo khayr qarsoon been maahan aniga dhib walba nolosha dhan waxaan ka bartay عشر باك برتي أنا أدونك ومعلن أنا waxaan ahay arday wax kasta waa inaan ka gudubnaa imtixaan walba aan marayno waa in aan ka gudbi karno imtixaanada soo marka hadda kan waxay ka hadlaysaa dhib kasta kugu yimaado wuxuu xambaarsan yahay casir iyo khayr qarsoon been ma ahanba marka inkasta ana cashiro badan aan bartay qofka kugu farxad galiya xitaa hal daqiiqad ilaahay barakeeyo been ma aha qofku markuu ku farxad galiyo adigoo murugaysan adigoo xilli dhibaato ku jirtid waa ina u mahad celisaa ama aad u duceysaa wadahada alla qofkan ilaahu khayraasi cimri dheer caafimaad ilaahay siiyo taasana fiican waliga allaha qofka waqtiyada adag oo garabkaaga soo istaago waa ina u mahad celisaa una duceysaa هاخوسن على مر والبحولي هاي ونكود بهاي بين معهن أنا مرمر خار مركع خوستو باوح أصلية هاي هاخوسن دون كان ولو مالني إلهي باكل جري مر بهدا إلهي ودود هاي وحبك عما هلاف هاي الدنيا دون هدي كاسو هرجيست هو يدا إلهي كامسو هرجيسن كران إلهي مركز كل جرا إلهي وكأرك هاي هدا ربعتي سنتا هدا مروح سنتا هاي هدا وحول بقى حالد والبقى أكو دورتو إلهي بانكو أرك هاي gurigan 4 mitir xiran idin dariska kuma oga laakiin yaa ku og Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa ku og marka ha qoysanin alla mar walba wuxuu ku leeyahay oo ku dhawahay farxadda ma timaado marka wax walba hagaagaan waxay timaadaa markaad ku qanacdo xaaladaada xaaladaada marka aad ku jirtid waa inaad qanacdaa
horta been maahan farxadda la sheega ba adaa samaysan karaa anu mar waxaa iska dhaadhacsiyay in farxaddayda ay ku xiran tahay qof kale laakiin hadda waxaa ogaaday farxaddaba ina ana aan samaysan karo aan farxi karo aan murgi karo qofka wanaagsan ma ahan mid hadal badan waa mid ficilkiisa laga dareemo أنا أنا ما هذا البدني لكن أنت تخانة وحاسك جعلها بدنا إنه موت أقول ميلها خاص إذا مقايدة ميلها كله فريو هذا دل فريق هذا كله أحب وحاجعلها إن أسكأهم ومش جيب كان أسكي قالوا عم بدك كوري يرنب وحير كده بحالة بس أنت marar qaar aamuska waa jawaabta ugu xasiloon ee qofka laga sugo beema qofka alla ku tusiyo xitaa hal mar hadaycin waayo wuxuu kuu noqon karaa furaha khayrka badan beem aha qofka mar walba markuu ku xasuusiyo ilaahay uu ku dhaho war hay salaada mutukatay oo wadada toosan kuga hagaago يعني ودي توصل كمرسية وكله ورنا هو مثلا وده في عمانة وده خير كمر أو مر والبإله كوسه حساسية ولا بين معها خوفك وخوفك فرها خير كقوة فهمتني سو مر والبالوم هذا إلهي خوفك إلهي مركز حساسية لكن ما في عن أديك أنا حساسناتي لكن أنا رب إلهي هنوني هدو خوفك إنسان هنون سنين وأنا هذا ورنا هو مثلا كجوجي بالخير كأت nolosha ha ku luminin dadka aan ku arkin qiimahaaga been ma aha noloshaada ha ku luminin qofka yani qiimahaaga aan aqoonin taas been ma aha sababta ah yani qofka si walba agtiisa aad ka tahay waa inaad ogaataa qiimaha aad leedahay fahanteen noloshaada ha ku luminin dadka aan ku arkin qiimahaaga haddii uu alla ka xiro albaabada ugu inuu ku furayo mid ka fiican been ma ahan ilaahay intuu albaab ka xiro waxaa laga yaabaa albaabkaas inuusan ba khayr ku ahayn mid ka khayr badan inuu ilaahay ku furayo soo mar walba waxaa wanaagsan inaan sawarno ilaahay wuxuu fiiriyaa qofka sawarka badan oo iimaanka leh ilaahay waxaa ka baryaa inuu albaabo badan inuu ilaahay u furo insha allah qof walba wuxuu leeyahay waqti adag balse xooga dhabta ah waa kan sabra been ma aha qof walba wuxuu leeyahay waqti adag balse xooga dhabta ah waa kan sabra walaa taas been ma aha yacni xaalad kasta aad ku jirtid waxaa wanaagsan in aad sabartid sabarkaagu uu badnaado walaahi soo ani been sheegay asawir badanahay waa sabray waa dulqaatay waa adkaystay waxaa arkay xanuuno badan soo mareen waxaa walaac waa ku dhibtooday dhulowga waa ku dhibtooday qalina maray hadan umasha markaas soo galay xaalad kala maray mar walba xaalad kasta xaalad mid ka adag way ku soo maraysaa aniga ilmahan xanuunka ah ka maray ma umaleynay inaan ka maray ciyaalkayga kale soo marka alxamdulilah shukr rabbil caalamiin weli waxaan ku guda jiraa sabarka insha allah ilaah waxaa ka baryayaa sabarkayga inuu maalin ii dhalo insha allah markaad garato in wax walba ay si ku meel gaar ah u yihiin waxaad baranaysaa degenaansho waxaad baranaysaa degenaansho markaad garato in wax walba ay si ku meel gaar u yihiin waxaad baranaysaa degenaansho mararka qaar waxaad u baahan tahay in aad naftaada jeclaato sidii qof kale oo aad u daryeeli lahayd beemaha mar koowaad waa inaad naftaada jeclaataa si dadka kalena ay ku jeclaanayaan beemahan soo number 1 naftaada ha ku ahaato si walba aad u dhibaataysan tahay naftaada number 1 waa inuu ku ahaataa anu horta been sheegay naftaydu waa number 1 si walba stress ay hayo si walba murug ay haysa nafteyda marnaba maba iloobo waxaan jeclahay inaan isqurxiyo waxaan jeclahay marba si inaan iska dhigo waxaan jeclahay nafteyda inaan daryeelo inaan waqti isgeliyo jeclahay
soo inkastoo niyadda ay fadhin ma fahanteen waqtiga wuu baxaa balse xasuusta dadka naxariista leh weligeeda ma dhammaato bee ma aha taas hadalkaas wax kaaga baxay hoos baan wareegtaa waqtiga wuu baxaa balse xasuusta dadka naxariista leh weligeed ma dhammaato dad badan ayaa kaa hadli doona laakiin alla ayaa garanaya runta ku jira qalbigaaga yes bee maaha qalbigaaga waxa ku jiro ilaahay unbaa og qof bila aadan ku og ma lahan walaahi sababta ah qof walba uu ka hadlayaa adoo ceeb aan lahayn ku yeelaa xumaan aadan lahayn ku yeelaa wax kasto everything wax walba uu ka sheegaya laakiin runta qalbigaaga ku jiro ilaahay unbaa og ana taas aaminsanahay yacni maanta haddii la dhihi lahaa qalbiyada dadka hala soo eego waxaan ogaan lahaa qof walba maalintaas inuu cafis dalban doono dhihi lahaa alla qalbigaaga inuu san ma ogeenin bal cafis baa ku weydiisanaya cafis buu dhihi lahaa bay dhihi lahaayeen markaas ma fahanteen yaa qof walba cafis ku weydiisan lahaa ha iloobin noloshaada waa hal mar noqo qof wanaagsan si xasuus wanaagsan lagugu reebo bee maaha yacni noqo qof wanaagsan inaad noqotid way fiican tahay soo hadhow dadka kale beri ka maalin waxaa lagu dhahaa qofkaas qof wanaagsan waa yacni halkan waxaa ku haysanaa 2 warqad intan kale waan akhrinaya ma fahanteen soo warqadan waxaa qoran sidoo kale waxaan ahay hooyo ku fikiraysa sidee ilmaheeda ku korsan lahayd been maahan waxaa ka fikiraya sida ilmihii ku korsan lahayd sida horumar qurux badan ku gaarsiin lahayd insha allah waxaa kaloo rajeynaa haddii ilaahay ka raali noqdo dhammaantood inaan hal meel ku wada noolaano si wada jir si qurux badan hal meel aan ka soo wada kacno insha allah waxaa iisoo duceeyay insha allah idinka waxaa rajeynaa still weli garabkayga taagan tihiin soo ani maxaa oo milyanka inay gaaro rajeynaa insha allah waxaa ma u qalmimiyaa aniga youtube mar hore kusoo biiri insha allah waxaa rajeynaa inaan hadafkaas aan gaari doono maalin oo warqadan waxaa ku qoran waan ku faraxsanahay inay gaaro 800 waana mahadsantihiin inaan hadda idin mahadceliyo khalad bay igu tahay sababta ah waan iga soo dahay mahadcelinta waxaa la rabay markaas inaan idin mahadceliyo aad iyo aad u mashquulsanahay guriga howlihiisa ilmihii iga xanuunsanay iyo anigii oo xanuunsaday baa intaasoo ku mashquulay 800 inay gaaro xataa ma ogeen mar baa waxaa damcay anoo daalan baa waxaa arkay masjidka arabi inaan fiiriyo waxaa arkay dadka dhan oo idhahaya hambole 800 ay gaartay hambole waan farxay soo marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay still garabkayga taagan tihiin waxaa ii tihiin dadka keliya oo mar walba i dhiirigeliya waxaa tihiin familkayga waxaa tihiin dadka aan adduunka uga jeclahay dhammaantiin abaal baa idin haya maxaa yeelay maalintaas social media kusoo biiray ilaa abtinow garabkayga taagan tihiin marka hadda waxaa rajeynaa insha allah intaan iyo in ka qurux badan iyo in ka badan inay gaarsiin doontiin haddii ilaahay ka raali noqdo waxaan ahay qof hami leh waxaan ahay qof rajo iyo hami leh oo meel dheer fiigsanaysa baan ahay insha allah inaan gaaro waxaan rabaa qof adag oo meel iska soo saari karto oo ilmaheeda haysata inaan noqdo raba haddii ilaahay ka raali noqdo soo marka ducadiina garab taageena insha allah intaas baa idinka rajeynaa haddii ilaahay ka raali noqdo waan la faadin jeclaa dhammaantiina farxad nolol qurux badan baa idin rajeynaa